أغير وادين سلام ما يسلم كذب وحنو رمنا إننا دول استاجنو جور كيلكاس وجهرين وإنه همبلينا لكن همبليد أنتي نقولين وحنو بوقنا إنها هوين كقاب كيف فكريان إيه سؤالها أي نقولينا وعلى بقى قبلها قارن إسويدينا يعني رجو جرما أي سبدلا إلا أنت لاج أي هوين كبوق ذو أتكسن كران وعلى بقى قبلها قارن إسيرادان ويكعرودان جور كيلكاس ولي بيرادان فرح لوجا باست وحلو هيلي ما قبل أي عذو ويجبيه وحصل أمرك الإسقاط ضده رجو هكسمي وهالشيء هذو فنان هي هذو شيري هي هذو كان عصدي هي هذو عادي هي تنوجه رسوعي تاعي gurigiisa in karaga wuxuu jecel yahay inuu nagaashi ku dareemo deganaan macnaheedu kama dhigno inuu shiiq yahay iyo inuu fanaan yahay ee waxay kaga dhigan tahay shakhsiga maadaama uu yahay nin raga wuxuu jecel yahay deganaashi inuu dareemo si antaas u faano waxaan isweydiinaynaa ninka ilaa intee leeg ay u dulqaadan karaa xaaskiisa bal ila daawo muuqaalkan wiilkiin 4 sano qowsaar ahaa oo meelaha wareegay siinga lahaa maxaad gabar ugu darsan weydeen hadaa ruu sheegaysaan maxaad hadda aad qaraara gabar 7 fiilan ku darsanayna oo markii 4 sano meelaha aniga socday iska xamaalanay singalka aan ahaa maxaad intaad isku xilqaantaan oo gabar 7 feet tall u raadin weydeen hadda markii gabar 7 feet tall aan guursaday miyad gabar 7 feet tall u raadinayna waa raadinayna midda kale waxaad ii sheegtaan gabar nimca ka qurux badan intee horta ka keenaysaan ma heesaan wey markaynu rabnay inaynu macnayno muuqaalkan waxaan dul istaagnaa su'aash ahayd ilka casimiye u hiilay xaaskiisa jawaabtu wahaa cadawgeeda ay u jabiyay TikTok ayuuna ka soo muuqday ilka xilligaanna nimca Joker waxay ku jirtay dagaal qusaya social media laakiin su'aal kale ilaa intee leeg ayuu ninka ragga u dulqaadan karaa culayska iyo buuqa ka yimaada gurigiisa ugana yimaada banaanka ilaa xad waa sanad ilaa sanadii 4 bilood ilaa sanad iyo 5 bilood dhanka kale ninkaaga inuu isbedelo maxaa lagu ogaadaa leelada muuqaalkan soo boodaysa shaflabod baatay qodtaas adi waxa soo kala private uga hadleena meeshan public ah igala hadlay wax public aan kala hadlimay adiga ku kalbeynaya wariyaa sidan ahad ku jirto si lagu noolaan kara private wax la dhaana waso sidan ku jirto lagu noolaan karo adna hadda saarta ina ku noolaato hadarta ina sidan ku noolaato wallahi oo billahi oo tallahi inaad heer gaarin marka aynu rabnay inaynu dul istaagno muuqaalkan waxaynu booqanaynaa su'aasha ilkaas xaaskiisa miyo hadda ka hor si gooni u xanaantay jawaabtu wahaa laakiin marka aynu macnaynayno muuqaalka dhanka kale waa laba fariimood fariinta koowaad isla gabadha ayaa dalbanaysa arrinta in public laga joojiyo private looga dhigo oo si qaasa iyada gurigeeda qusayso looga dhigo hase ahaatee isaga ayaa ka biyo diidayoo leh haddii arrintan ay sidan ku sii socoto wax kuuma hagaagayaan maxay kaga dhigan tahay waa laba qaybood fariin aad u qayaxan inuu isaga isku daray iyadana u diray oo ah oo waan sii socdaa halkan waxaynu ka baranaynaa marka ay taagantahay arrimaha qoyska waxaan ka soo qaadaynaa adigoo taagan goob lagu ciyaaro banooniga kadibna lagaa siiyo positionka ugu macaan dadkuna ay kaa sugayaan inaad soo bandhigto hab ciyaareedkeeda ugu wanaagsan haddii gabadha hab ciyaareedkeeda ugu wanaagsan ee guriga kusoo muujin weyso waxaa suurtagala ninkeed inuu go-aan degdeg u ka qaato dhanka kale hana ii arkin inaan ahay qof u janjeera dhan laakiin su-aashan waa muhiim annaga oona ka hadlaynin ragga guursada xaasaska labaad iyaga oo bilaa sabab laakiin waxaynu rabnaa inaynu ka hadalno dadka guursada xaasaska labaad iyagoo sito sababta sida ilka case tusaale ahaan ma waxay ka taagan tahay ragga mise waxay ka taagan tahay haweenka aragtida ragga haweenka hadalka badan miyay u arkaan raggu inay yihiin gabdhaha aad ku caqliga badan jawaabtu waa maya aragtida ragga gabdhaha degan gurigooda lagu nagaado ayay u yaqaanaan kuwa aad ku caqliga badan sidaa darteedna cilladu waxay ka taagan tahay waa haweenka halkaana waxaan uga hambalyaynaynaa fanaanka weyn ilka case gabdho ilaashada raggiina si ay idin ilaashadaan